بسم الله. Warsame Digital Media Ishmael Warsame waa idin salaamay dhammaantiin. Waxaan jecelahay inaan yaraha ka sheekaysano siyaasadda Soomaaliya iyo meeshay marayso iyo waxa la filayo iyo waxa dhici kara. Horta doorasha dhacaysa, doorashadaasuna ma aha mid kolleyba dadka Soomaalidu ay ku faraxsan yihiin, waayo doorasho lama oran karee waa xulasho, waana xulasho yacni la oran karo waa ku takrifal ama boob markii dad loo astayo, dad loo xiro, dad laga qaado, dad maaragtay lagu goobto. Waxaas haddee doorasho lama oran karo, nooceedana u malayn maayo inay adduunka meelay ka dhacdo inay jidho xataa u malayn maayo. Yeelkeeda dad badan waxay ku ducaysanayaan ilaahow tanna dhaafi oo si nabadgelyo aan ugu dhaafi. Waa muhiim in Soomaalidu aysan dagaalkii ahliga ahaa dib ugu laaban. Weliba hadda qabaa'ilka waaweyn oo 4.5ka dagaal ku saabsan laga hadli maye, waxaa laga hadlayaa dagaal beelo hoose iyo degaan hoose iyo qabaa'il meel wada degan ayaa laga hadlayaa. Marka taasaana kasii khatarsanoo waa midda la yidhaahdo dagaalka qoyska weeye, ama waxa ingiriisku yidhaahda family feud, marka walaaluhu islaayaan ayaa la yidhaahdaa dagaalka noocaas oo kale ah, dagaal qoys. Hadda waa gebagabaad moodaa meelo yar ama buckets, meelo yaryar, jaamo yaryar ayaad moodaa in uu ku haray xulashadaas maaragtay boobka ah ama astaynta gaarta ah oo maaragtay dad loo xirayo ama dad maaragtay ugula dagaalamaya. Haddii ilaahay tanna dhaafiyo, waxaa loo gudbaaba waa doorashadii madaxweynaha Soomaaliya. Soomaalidu maaha aan isleeyahay waa ku toolmoon tahay halkan. Ayay leeyihin, waxay yidhaahdaan hal xaaraana nirig xalaala ma dhasho. waa run, ma dhali karno, iyadii baaba xaaraanaysa nirig xalaala ay ku imaan karto. Marka yacni haddii mahmada loo isticmaalo doorashada madaxweynaha, waxay noqonaysaa baarlamaan dee sidaa lagu soo xushay oo aynu ognahay siduu ku yimi, sid uu u doorto madaxweynihii ku habboonaa Soomaaliya. hadde waa uduujeedna waa adag tahay. adigu ilaahay amarkii nasiib ummadeed, shil taariikheed waa dhici karaa in uu halkaas ka soo baxo doorashada tiim madaxweynuhu madaxuu yahay oo ra'iisul wasaare maaragtay macquula lahoo kabineed maaragtay ra'iisul wasaaruhu soo xuso macquula. waa laga yaabaa, waxay ka mid tahay yacni shilalka dhaca, accidentka dhaca adduunka ayay ka mid tahay. laakiin marka analysis la sameeyo, dee baarlamaanka sidaad ogtihiin lagu soo xushay siduu u haleelo tala fiican oo
iyagu say ku yimaadeen ka hufan dee way adag tahay haddaynu maaragtay arrimaha si dhexdhexaadnimo u fiirino faallooyin baa jira ku saabsan yaa soo bixi kara yaa hormooda hadda siyaasadda ragga u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya ilaahay waxaan ka rajaynayaa isagana si nabadgelyo ah inuu noogu dhaco laakiin haddii la ordaraso dadka maaragtay hadda muuqda oo la filayo madaxweynaha fadhiya farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Puntland oo isagana aan wali caddaysan laakiin la filayo 99% inuu xamar u socdo oo doorashada ka qayb gali doono isu taga maaragtay ama midowga musharaxiinta niman la yiraahdo oo haddeer aan la heli karin nin hormood u ah qof kaloo aan la aqoon oo laga yaabaa inuu soo baxo laakiin qof aan haddeerba la ogeyn oo waxa la yiraahdo name recognition lahayn yani magac la yaqaano ama soo jiray oo Soomaalidu ay garanayso aan lahayn isna waa adag tahay soo ku soo baxo waa accident ama waa shil taariikheed oo kale ayay noqon kartaa waa suuragal mid aan wali ku dhawaaqin oo dadkii hore la yaqaanay inuu isna maaragtay isa soo xaadiriyo oo maaragtay cimaamadda uu isaguna ku tuurto dayrkaas lagu feertamayo siyaasadeed haddii la isku soo xooriyey hadda labada qof oo isleeyahay waa hormood waa Saciid Cabdullaahi Deni iyo Farmaajo din taariikhda Soomaalida si isu dooran jiray la fiiriyo din madaxweyne hore u ahaan jiray sidoo ku soo laabto waa adag tahay laakiin the accident ama shil waa dhici karaa oo waa suuragal in Farmaajo ku soo laabto markii ugu horreysay taariikhda Soomaalida waynu u joognaa Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ka mid yahay labadaa qof oo hormoodka ah dadka qaarkood waxay leeyihiin wax badso wax beel bay leedahay hadda waa madaxweyne Puntland hadduu ka Soomaaliya aado say noqon doonto lama yaqaan dadka aad u fiirsada arrimahaas waxay leeyihiin waa boqolkiiba 50 waa noqon kartaa marka waa iyada ruuxeedu wax sugan maaha waa wax shil dhici kara wey dad badan ayaa waxay ka yihiin yani rajo xumo ka muujinaya isxukunka Soomaaliya iyo dad aan maaragtay diyaar u ahayn waxa la yiraahdaa fair play ama si fiican inta loo tartamo in la isu ogolaado guusha waa adag tahay inay dhisaan system adag oo markaa waari kara yeelkeeda hadda Soomaalidu ilaahna waa leedahay marka waa filaynaa inay arrintaanu khayr ku dhamaato aad baan idin salaam